waxyaalaha badan waxyaalihii dhibaatada aad ka sheeganayseen jiray ee noo sheegtay way odayaal ahaan wixii wax laga qaban karo iyo wixii tale aan ka geysan karnaba inaan ka geysano badankuna wuxuu ku salaysan yahay waxa weeye dhinaca aad ka cabanayseen ee inaga maqan wey marka annagu doorkii dhexdhexaadin iyo doorkii runka sheegid weeye marka sideedaan u qaadanaynaa golihii aan ka nimidnayna waanu ku celinaynaa hadduu ilaahi yidhaahdo si guud ahaan walow ad ka warqabtaan golahaas inuu howlo badan hadda ku jiro ururada ah heshiiskii xadiqarameedka ah idinka dhexeeyay la wada saxeexay oo xisbiga dowladda iyo xisbiyada macaaridka ay sameeyeen oo odayaasha golahan ku jira iyaga kulli warbixinta bixin doona oo inala fadhiya raggii ku jiray toddobaadkanna isu keenidii dowladda iyo xisbiyada ay wadaan oo shalay shir aynu qiimeynaynay ilaa iyo talaadada inay soo dhammeeyaan qorshe ay u qaateen dadaaladaasna ay socdaan marka iyagaan u dayn doonaa inay warbixinta bixiyaan anuu marka u horeysa waan aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan qiraynaa doorka nabadda ee maanta aan joogno ee deegaankeennu nabadda uu ku yahay inay onalef kow ka tahay kaalinka koowaad qaadanayso sababtoo ururo macaarida oo hubaysan oo eritrea aad ka wada timaadeen baa weli hubkii haya taas ayaa u ah daliil ninkii aan ogeyna inuu ku garta ay tahay inta iyada ogna waan idinka mahad celinaynaa dadkeennu u daalay dhibaato badan baa ku soo dhacday gumaysi badan baa ku soo dhacay wax badan baa ku soo dhacay taa doorkaad qaadateen waad ku ammaanantiin go-aan geesinimada aad qaadateen taa weyta nabadda maanta lagu joogo dad badani ku badbaadayaan taa markaa annaguna ma fudaydsanayno idinkuna mar walba inaan laydinka mahad celiyana waad mudan tihiin askartaad wareejiseenna waanu taagnayn markii la soo dhaweynayana waanu joognay waxaasoo dhan waan ka warqabnaa wixii xuquuqahooga iyo sidii loo raadin lahaa waa de waxaan kala hadli doono wakhti dambe iyo golihii baan ku celin doonaa howlaha socdana way ku jiraan marka nabadgelyada qayb weyn baad ka tihiin inay timaado nabadgelyo deegaankeenna maanta waan ka warqabnaa odayaal baan nahay etoobiya dhibaatada ka taagan deegaanka keliya ee la ammaanayo ee wax walba la leeyahay waa deegaanka soomaalida marka shacab iyo dowlo iyo odayaal kaalinka wuu jiraa laakiin kaalinka u weyn baan idin siinaynaa creditkaana waan idiin haynaa waanaad ku mahadsantihiin waa waxaa u timaadeen iyo waxgaradnimadiinna iyo inuu dadkani nasto sidaad u rabtaan ayay ka turjumaysaa taa marka annaga odayaal ahaan waa ognahay meel walbaan joognana waan ka sheegaynaa hadda ka kowarna waan sheegnay kale inaan sheegaan rabo waxa weeye karaamada odayaasha iyo siduu dhiira u soo dhigay xaqiiqo weeye odayaal baa waddankan xukumaya odayaal baa difaacaya odayaal baa waxaynaya odayaashana waxaa ku dhacay saad sheegtay dhibaatadii gumaysiga ee waddanka ka jirtay baa ku dhacay intii hadda isbeddelku yimidayna dadaal waan muujinaynaa laakiin meeshii looga baahnaa istifaac nagamaha oo difaaci mayno odhan mayno waxbaan qabannay laakiin dadaalunbay naga tahay waxaan ka dadaalay dhibaatadii ururka dhexdiisa ka dhacay inaanu dhexdhexaadin ka samayno xaggiinay ka hakatay waxaan bilownay anigu weliba shakhsiyan dowladda iyo ururka madaxdiisa inaan su keenno wakhtigeygii maaydaan gaadhin baa la yidhi intaana haddana odayaal ku jiro oon hoosta isku ogeyn baa jira waa ku filantao midho maadaamayna dhalin de hadda waxaan nidhaan waxaasaa dhalay ma jirto odayaashu inay karaamo yeeshaan waxa laga rabaa horta waa bulshada soomaaliyeed maanta idinkaa idinla shiraynaa beri haddii caaway social media wax la yidhaahdaa yimide anigu cuqdad kama qabayn wax layga sheegay haddaan khaldamo hadda maanta waxaan meesha u joognaa wanaaggii ummaddan inaan ka wada tashanno odayaasha habrashaa ku timid wixii aad hadda sheegayseen baa waa kuwii tobankullayaasha waa kuwii sidaa sameeyey haddana onalaf bay u galeen way bilaabmeen koofiyaddan anigu wada aniga shakhsiyan cudur laygama qabo anu haddaanan garaad ahayn waxba laygama sheegeen suuqaan joogila waxa wax laga sheegay waa garaadnimada
ibni aadan baana waxbaa laga sheegi waxa iyadana daba taalla war waxaan wada idinka iskale waxaan wada haddii la caayo oo wax laga sheego oo la waxeeday idinkunbaa iscaaya haddii dowladdu nabadgelyadii waxay qabatay aan idhaahdo war way fiicanta waxaa la qabtay dib macaaridadu maa wixii la qabtay in la caayo maanta shirkan aan ku jira waan hubaa in wax la sheegi doono bulshadeennaan la hadlayaa idinkoona lafa maaha iyo dowladda iyo ciddii xisbiga maaha inaynu barano war waxay odayaashu wadaa waa wixii karaamadii iyo odaynimadii waa waxaana looga maarmi laayahayna loogu yeedhanayo waa waxaan bulshada ugu jirnayn maalin walba leenahay war kistaaye ee dhiigga baajinaya inta nabadgelye hadda aan sheegayna ku ammaanantihiin idinku in leeg baanu haynaa qabiil baa laysu haystaa ruux baa laysku haystaa xoolaa laysku haystaa beeraa laysku haystaa intaa waa ku jirna kreditkeega wax walba ha loo yeelo xad ha loo yeelo marka garaadka la dhaliilayo ugaaska la dhaliilayo odayaasha la dhaliilayo xad ha loo sameeyo anna haddaan karaamo yeelanayno inaanu karaamo yeelano sidii odayaashii hore aan noqono kalsoonida de waa u baahan idinka ururada macaaridka kalsoonidiinii waan u baahan waxa taa keenaysa inaanaan idiin iman karin baaba dee meesha ka muuqato mahadnaqaama ka garanayna waxaan aad ugu mahadnaqaynaa inaad ka soo qayb gashaan odayaashiinni baana xisbiyadaydii baa tihiin waan ku qasbannahay ku walba inaan nimaado kalsoonida horta idinku ha idinka bilaabato inuu odaygu hore u socdo markuu khaldamana ha loo sheego malaa'ig maaha samada ka imanaysa uu khaldami uu danaysan wax walbuu samay ha laysu nasteexeeyo waxa bannaanka lala taagan yahay dhibaatay noqonaysa anu awal hore ma diiri jirin wax walba xilligii dowladdii horena waan joognay oo xaqiiqo meelaan tagna ma hayno bulshada un baan howlo yar u hayno intaa waan adkaysanayna dil iyo xadhig hadda waad nagu eedaynaysaa annagoo fadhino odayaala karaamo maanaan ku haysana cayda hooyooyinkiin cayda naagihiinaana lagu dulcaayay gabdhaha iyagii aan dhallay ee ama habarartay ahayd baa laygu dulcaayay ka dhibanihii waa aniga idinkiisa haddana sidii waad cay nooga dhigaysaan waad dhex fadhideen waxaa markii laydin lahaa waad dhex fadhideen waxaasi waa wax soo dhacay inaan wixii ka noqonno oo odayaashii aad sheegayseen aan noqonno ururada macaaridka iyo ku dowlad ku jira iyo shacabkuba inay qaataan odayaashooda inay karaameeyaan markaan saan leeyahay haddaan khaldannayaan waxba naloo sheegin ma ha laystoosiyo waxaan wadna waa wixiinnii haddii onalaf wax laga sheegay dee idinka laydinkama sheegin hadday wax khaladay waa onalafun baa khaladay annaguna waxaan wadna waa institutionka waxa laga sheego ha la toosiyo ha la hagaajiyo ha la waxeeyo waxa yar dhibaya odayaashii mar walba loo imanaya howlahan haya waa 10 kuleydii waa kuwii shalay toole waa kuwii shalay dadka lagu horcaayayo waa kuwii bahdilaa taa lafteeda odayaasha way sii dhigaysaa waxaan u gaabsanayna taasaa ka mid waxaan runta u sheegay taasaa ka mid marka taa waxaan leeyahay idinku maanta haddaan idinkaas hor fadhinahay idinkuna karaamadiina iyo sharaftiina annagana noo yeel annagana nagu riixaynaan xaqa iyo xuquuqda iyo wixii ummadan danteeda ah inaan ka hadalno idinkana mas'uuliyadiina qaata taa waa intaa tan kale dhibaatooyinka hadda dhacaya gudoomiye cabdiraxmaan waan saragnay ramadaanka gudihiisii hadda shirkan gadweyne nin la yiraahdo baa la soo hadloo yidhi odayaashiinii nabadda waan idin baahana waxaad nooga baahantihiin iyo waxaan u soconnay iyo shir ONLF baan u soconnay cadaaladii nabaduna way joogtaa ururadii macaaradkaana haddaan oran lahayn waxun baa soo diyaar garoobi lahay laakiin hadda annaga odayaal ahaan odayaasha nabadda iyo barnaamij noo socdaa jira shalay baan hoggaanka wada fadhinay oon lahayn odayaashu ay reportiga bixinayeen waxyaalo laga cabanayo oo masiiriya jira aan soo nimaadno waxay dowladdu noo ballan qaatay ishor fadhiista annagoo joogna goobjoog ka ahaada na wada hadashiya wax walba na tiraadaan diyaar baanu nahay idinkana dhiirigelin bay noo noqonaysaa inaan waxaan qaadno diyaarinno guddiga hadda iga dambayn doonta oo ku jiraan Sultan Cabdiraxmaan Maxamed Carab iyo Xamud Fiile iyo Shariifka iyo Marwe iyo ay ku jiraan iyo odayaasha kale inay iyaguna warbixin ka bixiyaan xaq u marayo wada hadalladu ururada iyo sida loo wado waxaanaad hadda sheegteen ee waaweyn inaan la noqono heshiisyadii muhiimka ah wixii ka dhaxay in la waxeeyo taasna hadda ka hor may jirtay may dhaliilaa jira oo waa qaadanaynaa
inaan ka hadalno in si aan shakhsiyan aan isugu daynay si shakhsiyan aan isugu daynay ururka dhexdiisa markuu khilaafku yimid inaan soo dhexgallo dowladda inaan soo dhexgallo oo nidhaahno waraan idin wada hadashiina nabadani danbay noo wada tahay arrimahan doorashooyinka iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya laftooda hadde shuruuc iyo xisbiyo iyo nidaamyo aad ku heshiiseen baa jirta heshiiska waxaad ku wada gasheenna waa boordiga doorashooyinka waad cabateen broseskii baa idiin socda meelaan ka soo gallaan garan weyn odayaasha siyaasaddii bay dhex socdaan ha fadhiistaan odayaashu maxaa ka galay hawshaas waxaan baraarugnay markii la doorashooyinkii baa la hakiyey deegaankii waan isweydiin war maxaan samaynaa doorashooyinka waa la hakiyey ururada macaaridka aan la hadal ta bilaabatay weeye hadda ay socota boordiga aan la hadalno oo dhibaatooyinku maxay yihiin way noo suuroobi weyda annaga laydinlama kulmayaan waaban codsannay guddidii imanaysa inay nala hadasho uma soconnaa la yidhi annagu mishin baan wadanaa mishinkaan baan ku soconayna intaas dhibaato eed sheeganaysaan annaguna aan dib ula noqonno golaha iyagii aan u noqonno hadda waad cabateen cid baad ka cabateen ciddiina meeshii ma joogto aanu isu dayno annagoo odayaala inaad isku hor timaadaan dhibaatooyinkaad kala tirsanaysaan aad waxaysaan si soomaalinimaa loo waxeeyo si wada jira loo waxeeyo waxaynu u wada rooraynaa waxa weye deegaankan oo horumar oo nabada inaynu aragno rag u soo halgamay oo halgamayaala iyo ku xisbi oo fikirkiisa ku halgamay iyo kule maamulkii baan hayaa nabad horumar baan wadaa inaynu isu nimaadno oo wada hadallo waxay ku dhaantaa ma jirto innagu Itoobiyada kale iyo Soomaalida kaleba waan ka daranaa meel walba nabar baa inagaga yaal meel walba jidkeena malax baa ku jirta sidaynu u wada dhigi lahayn dhammaanteen inaynu garbaha ka wada fadhiisano mooyaan kala tag iyo iscambaarayn iyo wada dad si nool dadka nool baa tartama ama waxeeya inuusan sheegay meel walba deegaankeenu dadkiisu malax baa ka socota idinkuna qaybtiina ka qaata waayeelnimaad qaadateen door weyn baad ka qaadateen hadday nabad tahay hadday deganaansho tahay hadday maxay tahay doorkiinnii uun sii adkaysta waddankan uu isbedeli wax bari iman doono annaga waxaa noo muuqda diidiilo kol maanta haddaan loo xidhin oona laf baa maqan waxa weeye wuxuu taageeraa hebel wuxuu nin walba u habradaa qori baa bannaanka yaalla maanta kol haddayna jirin saad sheegteen waxay noo hadhay waxaan samir ku gaari karra wey waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad samirtaan samirku ilaa goor mu ahaan waxaynu ka wada shaqayno oon ka wada fadhiisanno oon ka wada duulla ha noqdo odayaashiinni baan nahay waadna ixtiraamtay waa mahadsantiin waxaanoo dhibaato ah aynu u wada fadhiisanno ma la wada xallin waqti in lagu xalliyo wax hore loo xalliyoba inay dhici kartaa laga yaaba marka waxaan leenahaa waayeelnimadii aad markaa timaadeen aan idinku waaninay inaad qaadataan sababta idinku dhibaato dhimashaad u aragteen dhaawac rag baa maqan rag baa carruurtoodii iyo ehelkoogii baaba'ay waxaasoo dhan baad garanaysaan wiilashani waa wiilal yaryar waa kuwaad dhali kartaan qaarkood waxay wax u yeelloobeen idinka halgankii aad ku jirteen marka waxaan leeyahay ha la samro samirka dulqaad badan muujiya hadda kadibna aan wada shaqayno annagana karaamo markaad noo yeelataan baan karaamo yeelanaynaa odayaashaydii baa tihiin waxaan qabta annaguna aan isu dayno taasi waa intaas ta kale odayaashaan u dayn doonaa oo iyagana wax ka odhan doonaa annagu waxaan diyaaru nahay waxaan inaan wax kala qabanno dowladdii la hadallo isukiinkeenno wada hadashaan wixii laga garaabi karo markaad wada hadashaan idinkoo wada joogaan ka garawno haddaad idinku khaldantiinna dhowr waxaa daaya hadday iyagu khaldan yihiinna waxaa daaya laakiin kalsoonida gumaysigu inagu wada dhacay odayaasha inaad taageertaan aad kor u soo qaadaan idinkaa laydinka sugayaa idinkaa waayeela idinkaa wax walba soo arkay ayaan leeyahay anugu cabdinuur iyo ragga kale ee xisbiga ku jirana xisbi waa xisbi federaala idinka saad sheegteen taladiinna ku soconaya deegaanka nabadgelyadiisu waa inoo dan deegaanka nabadgelyadiisu doorasho ma dhul la maamulo xisbi ahaan oday ahaan waxaasoo dhan ka muhiimsan in nabad la helo ilaahay fadligiisay ku timiday dadaalkiinay ku timiday maanta jigjiga inta laga baxo oo dhuxul la tago oo meel walba geed hoosti caanaha lagu cabaya waa fadliga ilaahay iyo idinka dadaalkiina
تاسم بمهم إنه وحكى الأردن وحلا جواد هذي كروي عينو كعماء إسقبسنا وذا دلالة نور الله وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.